Munaasabadan ayaa daarneed casharaf iyo sagootin loo sameynayay mas'uuliyiintii ka qayb gashay wejiga labaad ee shirka degmooyinka dowlad goboleedka Hirshabelle oo ay soo agaasintay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee Hirshabelle isla markaana ka qabsoomay magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe waxaana ka soo qayb galay xubno ka tirsan labada gole ee dowlad goboleedka Hirshabelle kusimaha madaxweynaha ahna gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada dowlad goboleedka Hirshabelle xubno ka socday ururada bulshada rayidka magaalada Jowhar iyo marti sharaf kale xogayaha dowladda hoose ee magaalada Jowhar iyo gudoomiyaha maamulka degmada ahna duqa magaalada Cismaan Maxamed Mukhtaar Bare ayaa ugu horeen munaasabada ka hadlay waxaan runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay in maanta caawa halkan lagu soo xiro shirkii 3 maalmood ee magaalada Jowhar ka socday soona agaasintay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee ugu horeeyaan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo agaasimaha guud iyo dhammaan tiimka wasaaradda waxaan leenahay waa mahadsantihiin marka waxaan leeyahay xafladan qiimaha iqaayaha leh ee casharafta ah ee saaxiibada loogu talagalay waxaan leenahay waa bogaadinaynaa ilaahay caafimaad aan ugu siiyo waa jecleen inaad nala joogtiin muddana la qaadatiin laakiin bacdamaa oo la yiri waa la baxaa waa soo dhawaynaynaa Jowhar in lagu soo noqnoqdaan aniga aan rajaynaa hadduu al yiraahdo bacdamaa caasimadii ay tahay ee wax lagu dayda ay tahay adduun joorka joog aakhirana janna la yiri gudoomiye ku-xigeenka dhanka siyaasadda maamulka gobolka Shabeellada Dhexe Maxamed Cabdi Sheekh Xandow iyo gudoomiye ku-xigeenka dhanka maaliyadda iyo siyaasadda gobolka Hiiraan Xasan ayaa waxa ay sheegeen in muhiimad gooni ah uu leeyahay shirkii dhawaan lagu soo gabagabeeyay magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle isla markaana waxyaabo badan ay ka dhaxleen farxad ayaa cawil noo tahay inaan ka soo qayb galno maadaama maalmahan aan 3 maalmood aan baranayna casharada ku saabsan dowladaha hoose wax badan aan ka fahanay caawana ay tahay casharaf loo sameeyay dhammaan martidii iyo dadkii halkan joogay farxad gooni noo tahay annagana ka soo qayb galna waan ku faraxsanahay tan kale waxaan aad ugu faraxsanahay 3 maalmood ee aan wada joognay iyo waxyaabihii badnaa ee noo qabsoomay oo ay kamid ahayd casharadii ka baxay ee qiimaha badnaa ay soo diyaariyeen tiimka wasaaradda iyo ka qaybgalayaashii iyo annaga oo aad iyo aad ugu faa'iideysanay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa dhankiisa faahfaahin ka bixiyay shirka muddada 3 cisho ee ka socday magaalada Jowhar iyo casharafta loo sameeyay mas'uuliyiintan maanta waxaa noo soo gabagaboobay kulan qiimo leh wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose waxay ka shaqeynaysay horumarinta dowladaha hoose waxaad ogtihiin halkan waxaa lagu qabtay shirkii maamulada gobolada iyo degmooyinka wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee Hirshabelle Cabdi Daahir Guure Karoore oo dhankiisa munaasabada hadallo muhiim ah ka jeediyay ayaa sheegay in mas'uuliyiintii ka qayb gashay shirkan laga doonayo in nidaamka dowladnimada ay u dhaweeyaan bulshada ay ka yimaadeen inaan ka wada shaqeyno si dowladda hoose loo taabageliyo in dowladda hoose boonadeedii lagu wareejiyo lagala shaqeeyo loo tababaro maaliyadda la isla kontrolo waajibaadka wasaaradda maaliyadda ay leedahay ay qabsato dowladda hoose lacag ay gooni u leedahay ma jirtee in dowladda hoose shaqeysaan rabnaa ay shaqaale noqoto dowladeed gabagabadii munaasabada waxaa soo xiray kusimaha madaxweynaha maamulka Hirshabelle ahna gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Hirshabelle 3 maalin oo shaqo ah oo adag oo subax iyo galab aad fadhideen wax kala faa'iideysanayseen cashar qaadanayseen in hawada gabagabadii cashar lagu soo xirayo aan isugu nimaadno aad iyo aad aan ugu faraxsanahay wixii aan ka dhihi lahayn iyo dardaaranna waxaan malaynayaa wasiir Karoore ugu dambeeyay ayaa inoogu filan waxa ugu muhiimsan oo laga dhihi karo oo kaliya waxay tahay in muddadii yareedo inta la joogay oo 3 maalin ha ahaato laakiin bil u qalanto wixii laga qaatay meeshan
in la gudbiyo deegaanadii cabdiraxmaan xuseen cumar wadani warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Jowhar.